dowladda hoose dadweynaha reer Gabiley saxaafadda maarifeenka dhammaantiin dadkan ay wadada dhex marayso sida fiican uga qayb qaadanaya والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شركة ديسسا وسام سعيد كونستراكشن halkan maanta mashruuca ka wada qolada ay loo yidin injineerada inta maruntii waan mahad celinaynaa maanta waxaan u taaganahay in la shubo wadadii xabaalaha tagisay oo runtii khayr badan iyo ajir badan ba laga helayo oo sadaqatu jaariya oo maalin walba meyd marayo habeen kasta marayo oo dhibaato badan runtii ka jirtay ayaa waxa maanta Ilaahay fadligii inoo soo gashay gol ahaan inaanu shubno muxuu ahaa wadadii oo ay naga dhamaato ay noo raacdo mashaariicda ay noo dhamaatay 2014 sanadka ay gabagabada ku jira aynu u baahanahay kaliya in wadada la ilaaliyo oo danta guud annaasuna a'daa'u lima jahilu dadku waxa weey maanta waxaan wadada intii ay ooliyo burshaatada lahayd waxaanu ku xidhnay 4 gaari ilaa 5 gaari dadka wadada iyagaan u sameeynayna dadku waa dadkiina doortay haday wada tahay haday caafimaad tahay haday biyo tahay haday leer tahay intaba waajib guudka iyaga saaran weeyii oo umadu noo xil saaratay inaanu sidan oo kale uga shaqeyno marka waxaan u soo jeedin lahaa dadka horumarka la shaqeeyo oo wadadan marka la sameynayo inta ay sugayso in daamirka la saaray lagu diyaarinayo gaadiidleedu ha ka waantoobaan haday ka waantoobi waayaan anagu wala ganaaxaya xadhigna waa lagu daraya wadooyinka kale berito insha Allah hadii la yiraahdo wadada dawladda hoose ka bilaabanta muxuu ahaa wadada kale laamida ku dhacda waxa waa la banaynaya iyadana waa la bilaabaya 100 mitir koowaad dhagaxii qaaliga haba la dhigay iyadana waxaan u baahanahay in la sii baneeyo cidda wadada ku jirtaana ay banayso wadadu waa wadanta guud weey waxyaabaha ma aragtay qofka wadada gooyana waa qaadicu dariiq dadku marka ayna qaadicu dariiq noqonin horumarka aynu marka ka wada shaqeyno waxaan marka idin kula talin lahaa hadalkay kaga baxaya mas'uuliyiin badan ba hadii doonta waxaan kaga baxaya waxa weey horumarka maanta dalka ka socday guud ahaan gobolka ba aynu garab istaagno wixii inaga dhiman aynu isku sheegno inagoo miir qabna oo fayow oo waxaas ay naga dhiman waxaasina way noo qabsoomeen waxaana aan qabano sidaana ha loo qabto talada ma aragtid inta dadka dibadda ka joogteen maamulka ku jirina golaha iyaga ka mid ka hayna iyaga arkay dhaliisha meesha taala iyagana waan soo dhaweynaynaa runtii intaasaan kaga baxaya golaha iyagu waa mahadsan yihiin sida u garab taagan horumarka sida wax qabadka ilaa saacada ilaa saakadii shaqada socotay golaha deegaanka u taagnay soo gudanaya waajibaadka dastuuriga ee ummadda u dhaartay ee uu xilka u qabtay iyo agaasimayaasha waxaa dawladda hoose sida qorsheynta iyo arrimaha bulshada oo nigana si gaar ah ugu mahad celinayo billahi tawfiiq injineerka hawlaha guud waxay ilaa injineer cali iyo district engineerka cali sayd dhammaantood waxaan idin rajeynayaa khayr saad shaqada ugu heelatiin kolba intaad umadiina u qabataan baad ka heli doontaa magaceeda maayirka ilaa halka ugu hooseysa ilaa xildhibaan waxaynu nahay adeeg bixiyayaal adeeg bulshada aynu haynaanu bixinaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh